waxaa la arkoo la sheegay haweenay 15 ubada dhashay ayadii ubadkeegiina ay isku eg yihiin isla eg yihiin hablaha dhashay dhex fadhiisatay hooyadood waa laga soo sooci waayay dumarkii u tagay ee buuqday way ka dhex garan waayeen ilaa lagu marmoo la yiraahdo ma walaalaatihiin oo tanmatiini ugu weynaydba maya iyadii baa la may waa hooyo weeyaan markaas la yaabo lagu yiri hablahaaga waad isku egtihiin waad isku jidhna waa tihiin maxay see wax u jiraan waxay tiri yaraantaydii markaan yaraantaydii dharkii la ii geliyay ayaan xidhanahay tilood aqalna kama bixin bay tiri maadaama amarka ilaahay anigu aan ilaaliyay ilaahay quruxdeedii iyo quwaddeediina isaga ay dhowro u ilaaliyay tiri gabadha banaanka haday u baxdo waxay la mid tahay baa la yiri oo raga ay mar walba raga hor soo socoto waxay la mid tahay fulka ubaxa yar ee geedka dushiisa ka baxa haduu ubaxaasi uu geedka ka soo dhaco uu dharaaba la yiri uu dharaa dadna markaaba cadceeda ayaa iyo dabaysha ayaa saamaysa laakiin ubaxu geedka dushiisa haduu ku yaalo dadka oo dhan baa milcsan oo sidaas loo eegaya dhalaalkiisa iyo quruxdiisa oo isha oo dhan baa markaas il kasto meesha maraysa way deemoon waxa la gabadhu markay shariicada islaamka ay ku dhaqmayso quruxdeeda ilaahay waa u ilaalin waana u joojin oo quwadeedana waa ilaahay waa u dhowri hadii laakiin shariicada gabadhu ay ku dhaqmi weydo aqalkana ay joogi weydo dharka jilbaabkana ay qaadan weydo ragana kolba dhinac u hormarto sida ubaxa geedka ka go'ay bay la mid noqono 20 jirkayga gabadhaasi ma aragtaan ku fool xumaan markiiba 20 jirkay ku boosbooska waad fahmaysaa baan u malayn way fool xumaan khalaas shariicada diinta islaamka marka lagu leeyahay ku dhaqan adiga maslaxadaada ku jirta ugu Fatima radiyallahu anha bintu rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam markii ajashu ay ku soo xaadirtay ayadu markii ku tiri reer Madiina meydkayga in la arka mar rabiye bal sidaad meydkayga raga uga qarin lahaydeen ka tala bixiya bay ku tiri bariga meydka waxa lagu qaadayay sariir yar oo qofka la dul dhigo oo dadna korka sare la saaro marka la qaadana qofka dhaqdhaqaaqiisa la dareemo markaas Asma bintu Umays radiyallahu anha oo ka soo noqotay marka ardul Habasha wa Jaafar ibn Abi Talib xaaskiisii weeyane ayaa tiri aniga nacashkeena ka duwan baan ardul Habasha ku soo arkayo qofka lagu dhaxridaayo dadna afarta dhinacna mara lagaga xidhayo qofka aan la arkin meydkiisa marka Fatima radiyallahu anha waxay tiri kaas u sheega Caliyo iyo wiilasheedu aniga ka halay sameeyo dadna markaaba kiiba loo sameeyay maalintay dhimatana kiiba lagu dhaxriday Fatima aabaheed Muhammad alayhi salatu wassalaamna 9 bilood oo kaliya baa la yiri ama 6 bilood ay ka dambeysay aabaheed oo nabigana u sheegay alayhi salatu wassalaam maalmaha kamid ah nabigu xaasaskiisa dhex fadhiya ay Fatima radiyallahu anha u timiday ayadoo sida aabaheed u socota aabaheed bay socodkiisa lahayd dadna markaas aabaheed bay dhunkaday dhegtu markaa nabigu arrin sir ayuu la siraystay isla markiiba dadka hortooday ku oyday hadana nabigu wuxuu yiri soo celi dhegtaada fariin kale ku sheegay oo sir ah markaa buu u sheego isla markiiba hadana way faraxdo way qososhay maalin dambe ummul muuminiin Aisha radiyallahu anha ayaa ku tiri sirtii maalinta adiga iyo aabaha inaga dhaxaysay marna la oyday marna aad ku faraxday baliisheen waxay tiri hooyo sir aniga aabaha inaga dhaxaysay ayaa haydoo cidna u sheegay maayo Fatima radiyallahu anha sirtii intuu nabigu noolaa maysan sheegin laana dadkaasi tarbiyad baa la baray xifdu sirta labada qof ka dhaxaysa dadka kale in loo sheego maaha in la dhageystana maaha laba qof oo sheeko wada labu nabigu yiri qofka dhageysta dhageysigiisa isagana ay karhayaan maalinka qiyaamee aakhiro cadaab naar naxaasa naar iyo dhagaha lagaga shubaab rasuulku yiri yusabbu fi udunayhi bu nabigu aanuk hadal macnihi suha laba qof oo arrin sira meel ku siraysanaysa qofka dhageysta bu nabigu yiri ayakuna dhageysiga arrin sirtooda laga dhageysanay ay dibsanayaan qofkaas qiyaamaha dhagaha naar naxaasa lagaga shubaab nabigu alayhi salatu wassalaam
Faatima radiyallahu anha markaas sirtii nabiga may sheegin intuu nabigu noolaa laakiin maalintuu nabigu adduunyada ka intiqaalay ayaa waxa uu yeedhay Aisha radiyallahu anha oo tiri arintii maalinta ii sheeg hadda waxay tiri hadda waa ku sheegi maadaama aabahay uu dhintay sallallahu alayhi wasallam adduunyada ka intiqaalay hadda waa ku sheegi marka hore wuxuu nabigu ii sheegay uu ila saraysteen la ooyay ajashiisii buu nabigu ii sheego wuxuu igu yiri waan socday anigu iyo Faatima iska sabir marka labaadna wuxuu ii sheegay inaan ahay haweeneyda jannada ugu barwaaqo badan ee ugu nicmad badan inaan ahay buu ii sheegay xadiis kalena wuxuu nabigu ii sheegay tiri ha ooyina aamus buu yiri Faatima ehelkayga qofka dhimashada iigu soo xiga waa adiga aamus buu nabigu ku yiri marka 8 bilood 9 bilood muddo yar bay ka dambeysay nabiga sallallahu alayhi wasallam maalintay dhimanaysana waxay ku dardaarmaysaa jirkeeda inaan la arkin markaas nacashkii ay asmaa ku soo aragtay Ethiopia ardul habasha ayaa loo sameeyay kiiba lagu dhaxriday marka dumarkii reer Madiina maxay u ducayn jireen Faatima oran jireen Faatima ilaahay adduunkan iyo aakhira ceebteeda allaha asture meydkaygiina wayna asturtay bay yiraahdeen ilaa meydka barigoor waa la arki jiray haweenkii oo sariir ayaa la dul dhigi jiray qofku dusheeda u dhaqdhaqaaqayo ayadoo dhimatay oo naftu ay ka dhacday oo dambi xataa marka qofku de amalba ma sameynay hadee toole ayay ka digtoontaa in la arko jirkeyga oo dhaqdhaqaaqaya inakana maanta hablaha haweenkeeni qaarkood mid walba meesha yar ee jirkeedu ka qurux badan yahay ragga tusaysaaba ilaahay ha laga boqo haweenku waa cawro wadanada Asiyaatiga haweenka magacooda cawro yaadin cawra macnaha inaka cawrada meel baan u naqaanha cawrada raguna ma bayna surrati wal rukba laakiin haweenka jirkooda dhanba cawra ma cadal wajhi wal kafayn labada gacmood iyo wajiga mooyaane inta kale oo dhan gabadha jirkeedu waa cawro in la arka ma dhar ku dhagsan inay xidhato ma dhar jilbaab leeyahay waa inay qaadatay quraanku uu sheegay oo markay socotiyo markay gadaal u socotiyo markay hor u socoto aan la kala garanayn qofka meesha maraya ma inan ba ma islaan aan la kala garanayn dharkan aad xidhatay ba qiimo ku yeelaya ugu ee ragga aad istusayso wax macna ay ku sameynaysa ma jirto qarba kula hadaan jilbaab qaato indha shareerna qaato oo ayaa ay garan inaan fool xumaayna qurux badanahay haday rag wajigaaga arkaan hadii kala macna ma sameynaysa macnaha waxa sameynaya waxa weyn waa asturka Anas bin Ammar al-Asma'i ninka la oran jiray Anas bin Ammar inankiisii buu yeedhay abihi baa u yeedhay isaga abihi Ammar baa u yeedhay Ammar al-Asma'i wuxuu Anas aroos baa tahay buu dhacaa aroos way hayab aqdigii baa dhacay soo meydha lagu yiri dharkan xidha lagu yiri aroosadina qolkaaba ku jirtay orada u galba laga yiri hal firso inanka waanan dhalinyaro ah gabadha ma arkin ayaduna may arkin gabadha isaga waxa uu soo doortay reerkiisa inanka waxa uu doortay waa reerkeeda halka inaka zamankeenan wiilashiya gabdhuhu biladan lagu leeyahay way wada sheekaystaan oo way isla socdaan oo way isla hadlaan oo way wada xiriiraan oo maxay ka xiriirayaan waa macsiyo xiriirkaasi waa macsiyo is argays arkeena waa macsiyo khilaaf shariica weeyaan waxa soo dhanba shayga arooska hadii khilaaf shariica lagu saleeyana baraka ma yeeshay ugu waa wax zamankeenan dhalinyaradu nooca kale u wada noqotay leeyahay arooska aabihii hooyadii ba sax ahayn marka horeba oo macsiyo lagu dhisay dadna dad cusaada marka dhalanaya dad غافلين oo qafladu ku badan tahay ba mujtamaca ku soo badanaya laana markii la dhisay reerahan diin lagu masalaynin Allah ka cabsi iyo Allah ka baq asaas loogama dhigine nidaamka gaalada ee fasaadka ayaa asaas looga dhigay dadna mufsidiin bay dhalayaan marka ubad mufsidiin oo mujrimiin dhalanaya maanta oo wada dhanxiira inakii uu ku qancay aabihii hooyadii taladay u soo jeediyeen aqdigii baa dhacay aqalkii buu galay aroosadii baa fadhida uu salaamay salaamu calaykum waxay noqotay inan yaroo gaaban oo isaga aanan cajabin xagga quruxda
isaguna nin dheer buu ahaayo laankaa la ego qurux badan buu ahaa markaa buu ka naxay iyadii baa markay aragtay ninka quruxdiisa iyo dheeridiisa iyada ninkan uu qabatimay baa la yidhi laakiin isaga ma qabatimin gabadha baa la yidhi deedna markaa iyadii baa ku tiri hamurugin bay ku tiri hamurugoon waxaa laga yaabaa ilaahay khayr inuu ikaa soo dhex mariye hadalkaygiibuu ku qanco wuxuu is yidhi kolley aabbahaayo hooyadaa inantan waxay kuugu dooreen waa khayr ay ku ogyihiine iska barakayoo iska bismilayso habeenkii u horreysay leylatu zafaafkiiba uu la seexday ilaahay habeenkiibuu aqbalo caloosheedii durba ilmaa ilaahay geliyey ilmahay dhaleen wuxuu noqday imaam maalik binu anas buu noqday imaam daar alhijra imaam maalik raxmatullaahi calayh caalimu lmadiina 40 sano مسجدك النبي محمد عليه الصلاة والسلام ودروس حديث كليرا علم الحديث كأيو أمضى كبرايي 40 كاسنا نبالي الإمام كاسي مقالة المدينة نحن ذكى وكما قادا مركي اللي محاد كبها وحدا الله دعينا وحو أورنجري ما ماشى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يا لبدي سي صاحب أي هوستي ذا كجران مياك بكدل سعون يا أبو أورنجري إن أنت يويلكي أبيه هو يدي أوه كان سمي أمر كودا waxay ku curteen caalim cilmigiisu adduunka oo dhan uu buuxiyay ilaa qiyaamaha dhan loo duceynayo madhab imaam maalik baa waa imaam dhan oo madhab leh bal sheekheena shaafici rahimahullah waa macallimkiisii wax baray weeyaan wuxuu noqday macallimkii imaam axmed buu noqday aimada islaamku sidaas ay wax isku barayeen oo kala faa'iideysanayeen gabadh barakaysan wiil barakaysan bay dhalay ولد مطيعة أو إلهي أضيع سنة لبدا والد أضيع سنة أولاد برية أو أولاد بريين با إلهي سجن أوسين سعيد بن مصيبها رحمة الله عليه شيخ الحديث محدث في مدينة أيا إن أنت سنة عالمات بيهي علم الحديث كأدو تقاني والله اسكو الشيخي والله يقول الشيخ إن أنت سوى وقبر وناكسن بروح بيلاده هاي diinna ilaahay waa ku qurxiyo oo caalimad oo cilmiga aabaheed ka qaadata Muawiya ayaa maqlay Allah u naxariistay imaam amiirka muuminiinta Muawiya oo markaa Sham jooga oo dawladda islaamka oo dhanna ma aragtaan amiir u ah ayaa maqlay dadna markaa uu soo dirtay ergo wuxuu yiri imaamkaasi ma aragtaan Saciid ibn Musayyib waxaad ku tiraadaan inantiisa hanna siiyo oo inankaygan u dhisayaaye Saciid ibn Musayyib waa iska diido wuxuu yiri inantayda amiirka muuminiinta inankiisa anigu ma siinaya raaliha iga noqda buudi wala fiirso maanta inagu madiida lahayn in madaxweynaha hadii ilmihiisu inantaada ka soo doono adoo faqiir oo miskiin dhex fadhiya madiidaysid bal waxaad oran lahayd leelatul qadar ba yimidayba ila dad adduunyada dadku noqdeen maanta imaamka dhan ee masjidka nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam xadiiska ummadda uga akhrinaya inantiisi muhaddisada ahayd waxa soo doonay amiirka muuminiinta ee dawladda islaamka marka adduunka xilliga Muaawiyana dawladda islaamku xilli ay ka taya badnayd oo ay ka ciidan badnayd oo ka dhaqaale badnayd oo ka dhul ballaadnayd ma soo marin baa leeyahay taariikhda laana zamankii Muaawiya zaman al-futuhat buu ahaa dadkoo dhan baa la yaabay imaamkii dad badan baa yiri yaa sheekh gabadha si amiirkii muuminiinta amarkiisa hadiidan inankiisa si wuxuu yiri ma siinayay buu yiri wax maxaad u siin weydaa lagu yiri boqor dhan baa inankiisi u doonay gabadhaade adaaba nasiib leh markaas yiri wuxuu yiri inantayda marka aanu dhisay inanka Muaawiya ee qasrigii Muaawiya ee Dimashq ku yaala inantayda la geeyo ay saddex hablood timahayga intay qabtaan timaha u tidcaan xagga kalena saddex hablood ay khadamo u khidmeynaya ay u khidmeeyaan kabaheegana la hor qaado dharkeedana dhulka sida looga qaado diinteedii ummadda yicin buu halkay diinteedu mari buu keenay intayda markaas soo cilmigii aan yaraanta ku baray iloobi meesoo halmaamay meesoo u ka diiday inuu sii una ka dhaqaajiyay ardaydiisi kamid ahaa ayaa sheekhiiba uu ka waayay markaa darsigii fulaan aaway buu waxa fulaan xaaskiisii baa ka geeriyooto hawshii bay ku jiraan aaskii markaasuu sheekhu darsigii intuu joojiyay isaga iyo talabadii intay soo raacaan bay aaskii ka soo qayb galeen
dadna markii aaska laga soo noqday ayuu ardaygii ku yiri sabri iimaan Allah ka siiyo uu tacsiideeyay waxa uu ku yiri inantaydiina waa ku diyaaray marka diyaar garowda u kaalayo guurso ka yiri الفرس فعلا معاوية ويلكيسي وأودي إننتيسي أرضيها إننتو أي كجيريوتي أرضي دي سكمة دهانا إننتيسي وأقول سيب اللي بقر ويل ودلنا وأودي إننتي حرو حرتيسي كمة دهانا قبل دي سوسي لأن دتك أدوية كم فكرين آخرة ذي كفكرين قفك الدين تيسي إيجين إذا آتاكم ممن ترضون دينه وخلقه فزوجوه بالنبي قولي هدو إني ما دوقف الدين تيسا يطبع عديسا أتكرر لتهن أقوريا هذا دو قوري وإذا أراد فساد يفندد حنبا كدع دون تبو رسولك يولي قوركو الدين بي إيجيين طبع عدو وناكسن بي إيجيين هل كقور كان إنكو أنايجين القبيل وقولما لعقنا ما هايستا سومالي الله بضا بيقفكو ويديسا عيمك ورنيكا قبر دايقا صوت دوني وقولما وقبيل كي إلا قبيل بدينو نقضي الصومالي مانتي تقال دقالنا محو هايستا العق والله العق ما هايستين بسكيتكو علمك كردكتا لما كتبتو سين بكورن حسين وأودي دي بعدو دون قوري قال الربا قبردو إني جوكتو وحي علف إلهي هالكا ugu keeno ay ku qanacday ku asturto oo ku sabirtaa loo baahan yahay gabadha muuminada ee saabirada ee saadiqada aabaheedii hooyadeedna adeecsan baariyada oo dadkeega ilaahay jalla wa ala awlaadeeda wuxuu ka soo saaraa culimo ilaahay ka soo dhex saara culimo sifada kale ee dumarka أحكام تهوينك أخاص كوحة كمذا كذلك حكم لا يدعى هذا ما ركتاني طاعة الزوج يعني هوين يدو أي ننك يدا أي أضعضو طاعة والنبي قالنا شيء عليه الصلاة والسلام نكو ناكتي سهدو ويردو اسكديدو واقو وحو أبر يابو النبي قول يدو إلهي وعريسيه ملايكتنا إلا عنا دايسو هذا أمر لهاب النبي يقول عليه الصلاة والسلام قف بني آدم وسيدي سائل أسجد وحن كو أمر لها هوين يدو ننك يدين أسجد أمر لهاب رسولك يقول لكن سجود إلهي باسكال عدك إن لو سجود ما بنانو بني آدم نول إن لو سجود ما بنانو كو قبر كجرنا ورقي سيس كدابا سجود إلهي باسكال لأن السجود وعباده دول اسدق بالله دول اسدق halka jirkaaga ugu jeceshahay jabhadaada ilaahay u dhig ilaahay qeyrkii halka in loo dhigo uma qalmaan bal makhluuq uma qalmaan halka dhulka in loo dhigo marka hadii laakiin ay dhici lahayd buu nabigu leeyahay qof inuu qof u sujuudo aan amar ku bixin lahaa xaqqa ay ragu haweenka ku leeyihiin buu nabigu tusinayaa miisaanka iyo culayska uu leeyahay waxaan amri lahaa buu nabigu haweenaydu ninkeeda inay u sujuudo marka ilaahay tabaaraka wa taala qof walba xuquuq baa ilaahay siiyay raga inaguna xaq baad ku leedihiin oo xaqiina la inkiri maayo oo nabigeena sallallahu alayhi wasallam ninba weydiyo ku yiri dumarka iyagu xuquuqda inagu leeyihiin nabi allah bal noo sheeg marka buu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri hadaad cunto cuni waa inaad iyadana ay kula cuntaa hadaad dar xidhan waa inay kula xidhataa macna dhar baad iibsatay maanta iyadana xaq waxay u yeelatay inaad wax u iibisaa ما هنا حافظنا أترادا سوريا ريو وحير كرسدا أديكونا مقاحيد أنتو تكتو هيلبجيل أتكعون مع عدالة به عدالة بها الظلم واحد عنا سرير كا كل عنا من النبي قولي سو إيه هيلبجيل كو حاتر هذا النوكر يعني يا عروت يا دوا وضع عنا واحد عني بالنبي قولي حاسكاد وين كل عنتا واحد حدتنا وين يدنا وحدا ضربات قادته وين يدنا ما أنت وحوي بسا oo tiraada anigu maanta garan yar baan gatee adiguna ma aragtaane ho dhar yar ku gada inta yar Allah ku barakeeye cadaalad hada laba xas leedahayna iyo saddex xas iyo afar xas haduu ilaahay ku siiyeyna cadaalada waa inaad ilaalisaa kalgacaylka jacaylka ta adu ma haysid oo qalbigu meel buu u badanaya laakiin xagga cadaalada waa inaad waqtigaaga iyo wixii masaariif reerka si cadaalad dadka waa inaad u siisaa
reer walba wasnigiisa iyo miisaankiisa iyo miqdaarka uu leeyahay masaariiftiisa waa in loo garaabayo dadna waa in la siiyaa ila islaanta 6 ciyaala haysiya talaba oo wada haysa isku kharash maaha laakiin waxa la diidan yahay inaad tan aad bishan wax siisatan aanad waxba siinin taa lama ogole mid walba masaariifta iyada ku filan iyo ubadkeega waa inaad siisaa liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah ba ilaahi kan arzaaqada u waasicina anakuba isaguna reerihiisa ha u waasiciyo ha u ballaadhiyo kan ku koobnay ku yaraynayna ba ilaahay yiri inta uu karaya ba ilaahay xabbixiyo qofka bini aadanka wuxuu san kareen ba ilaahay ma basaarin be وهداد وحيبسن وين هذو يبسا يدا هداد دلي بو نبي يقول هواك إلا إن لا يرئد بينا شريعة وين شاكته وجهك إن لقد لما لأن وجهك دو وماشى قروح ذا لقى يكته ويان إن وجهك لقد لما نبره وين وكم وقنينا دمرك إن لقد دفتم ما إن لعاينا معها إن لعاينا لما أقوله عاين ابو نبي يقول حاسس كين صلى الله عليه وسلم بل آداب تدمر كالله دغمايو شريعة شاكتي ننس صحابي أضيبا ويمدي رسولك إسقو إن أنتي سقعنت هيا مركب النبي قطوسي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أكبر إنك سعد بن الربيعها إن أنت يدي صدو أدي لي بلاك بوكيدي مركب وجهه كدي لي علامات باكوت الله مركب النبي أو عرض رسولكم عليه وجهي ساس بدلي شريعتنا ما سوى دقينا كل بين بالنبي كوسو دقي سدوشيسا وعود أرادو وجيو هكجرة تقولي سدو ودفتي إنها ودفت تقولي مركب دقاقين سيجستين أيا صود دقي وحي إلى هاي النبي كوسو دجيي مركب النبي يقول صون نقطة ويصون نقطين مركب النبي يقول أردنا شيء وأراد الله شيئا آخر بالنبي يقول سبان إنك ندبع سنين إلى هاي نسكلوا دمعي برسولك يقولي إيجا دقيست أبو النبي يقول آياتنا يقول دكتي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع سومهن إلى آخر الآية آيات داسا مركا النبي يقول دكتي لقو عدين يو قوامada in rag ay leeyihiin hogaanka reerka ragga ayaa iska leh hogaaminta taladu waxay ka go'aysaa waa ninka xaaska waa la tashan karaa ninku naag xaaskiisa talo uu weydiin karaa laakiin go'aan qaadashada odayga ayaa iska leh oo maxaa ilaahay yiri qiwaamada rag waxay ku heleen waa laba shay marka hore isku ilaahay ba kala fadlayba isku karti maaha isku quwad maaha isku dulqaad maaha isku aqli maaha إلهي باك الله فضل عز وجل نعم دمر كان رجع شدة أذيق أو غالبا هل كدمر كان دبع سنانته أي غالب وتهي أذيق أي رجع كنان يا أذيق أي مارك ثاني النحر الزر أياد مدائن رجع كجرته هل كهو يدنا إلهي غالب وغير لين نقطه هو النحريس بدن أو دم قشب بدن أو دبرم بدن marka qawaamada rag waxay ku heleen wala bashay marka hore waa abuurka ilaahay baa kala fadilay bini aadanka marka labaadna baa la yiraahdaa maadaama iyagu ay nafaqeynayaan reerka aqalkii iyaga laga rabaa inay dhisaan oo dharkii ciyaalka u soo iibiyaan oo masaariifta ay bixiyaan wixii reerka baahi u lahaa intay raggu dabooli karayaan ragga looga fadhiyaa baahida inay daboolaan marka qawaamada labada shay ba raggu ku heleen dadna ilaahay gabadhan uu amaano wuxuu yiri gabadha saalixada ee suuban ee ninkeedana adeecaysa ee wixii loo dhiibtana ilaalinaysa baa ilaahay yiri sifaadkaas dumarka lagu amaanay waa saalixad way wanaagsan tahay oo ilaahayga adeecda waa qaanatato ninkeegana way ka dambeysaayo way ixtiraamtaay oo u hoggaansan tahay waa xaafidada waxa lagu yaqaanaa wixii ninkeedu u dhiibtay reerkeedaba way ilaalisay oo way ku fadhidaa haday reerka ceeb ay ka dhacdana ceebta way qarisaa iyadu ma sheegto haddii ninkeedu amaano u dhiibtana amaanada waa u ilaalisaa markaas ilaahay wallaati takhafuna nushuzahunna ba ilaahay ta aad uga baqdaan inay nagu noqoto maaragtana tu madax taagaysa oo amar diida inagu sameynaysa ba ilaahay yiri sidee loola dhaqmayaa marka haddii naagtaadu amar diida kugu sameyso
ma ul intoo la qaatoon baa lagu jijibinayaa may halkaa looga bilaabi maayo. hadday naagto amarkaagii ay qaadan weydo, amarka ilaahayna ay qaadan weydo, amar diidana aad ka dareento, reerkana inaynan wadaynin aad aragto, waxa ilaahay yidhi faciduuhunna baa ilaahay yidhi waaniya u nasteexeeya. dad hortiidan loogu nasteexayni maayo. xataa marka loo nasteexaynaya islaanta ma ahayn ubadka dhexdeeda maaha, si gaara habeenkii adiga iyadoo markaad isla kaliyowdaan ee qolkiina aad isla degtaan ayaad si gaara ugu nasteexayn ood leedahay xaajiyo khayr allah ku siiya baad leedahay, sidaa iyo sidaa iyo sidaa aad u dhaqmayso reerkeenna ma wadayso. waa in ilaahay aan ka baqnaa. faciduuhunna baa ilaahay yidhi waaniya. aadaabta islaamka loo sheegayaa, kala dambaynta lagu baraarujinayaa, alla ka cabsiga lagu baraarujinayaa, diinta lagu tarbiyadaynayaa. naseexadaasa in muddo lagu wadayaa, muddo badan. haddii ay taa wax ku qaadan weyda baa ilaahay yidhi fahjuruhunna fil madaajici baa ilaahay yidhi, jiifka uga taga baa ilaahay yidhi. ha ag seexan macnaha. dad doonto aqalkan uga baxmar marka qaarkood masaajidaada iska seexo oo aqalada jaarka iska tago, wixii nin dhex mara cidna ha u sheegin, laakiin afka uun yar buuro iska yar aamusun. aqalka markaad soo gashana iyada ha dirdiranina hablahaaga dirdiraya ubadkaaga. soomaalidu markay cadhoodaan islaantii aqalka ka saaraan, halkana shareecaddu waxay leedahay may ninku waa inuu ka hijroodaa baa la leeyahay. gabdhaha cawradooda dibadda looma saaro, ceebtooda bannaanka looma saaro. aqalkay gabadhu in iska fadhiday ku asturan tahay. hadday dibadda u baxdo ceebtaadiba adigaa bannaanka u saaray ogow. laakiin adigaa la rabaa maadaama nin aad tahay oo islaantuna amar diidda ay kugu samaysay, naseexadii waanadii muddada aad ku wadana ay qaadan weyday, adigaa lagaa rabaa markaa inaad aqalka uga yar tagto. gogosha ayaa laga dheeraanayaayo ciyaalkaa la iska dhex seexano, adaa iska khidmaysano, biyahaad iska soo dhaansano, dharkaad xidhanaysa adaa iskala soo baxayo oo hablahaagaad wax u diranaysaa aabba quraaca ii keeno, aabba qadada ii keeno. islaantu markaa waxay odhanaysaa odaygii maxaa helay, aqalka ku noqonaya markaa cidhiidhi. hijradaa aad ka hijrootay haddii ay wax ku qaadan weydo waa tallaabadii labaad. ilaahay wuxuu yidhi wadribuuhunna, markaabaa ilaahay yidhi garaaca. haddaba sidee loo garaaci markaa? haddana mabud baa lagu garaaci. hangool soo ma taqaanaan reebbay maxaa tiri hangoolka ya waa isaga la waay hangool bay dumarka la dhacan, la dili maayo. tusbaxa yar iyo cimaamada yar iyo biyaha yaroo weysadoo lagu sheedhiyo iyo ya saasaa loo tarbiyadeynaya. leanna waa ubad, waa ilmo yaroo kore weeyaan islaantu. sida ilmahaaga yar aad u ilaalinaysid baa la rabaa inaad iyadana u ilaalisid. maxaa yeelay 10 cunug ee aqalka kuu dhex joogta iyadaa kuu dhashay, iyadaa ku tacabtay. warshada laga soo saaray ubadkaasi waa caloosheedii ogow. marka warshadii haddaad iska jijibisa ka waran. yakhluqukum fii butuuni ummahaatikum khalqan min bacdi khalqin fii dulumaatin 3 baa ilaahay yidhi daalikum allaahu rabbukum. yakhluqukum ilaahay waa inagu abuurayaa meeshee caloosha hooyadiin dhexdeed, waa raximka dhexdiisa. في 3 ظلمات با إلهي يدي مديرتا هوستيد ومدو رحمك دحديس ومدو علوش دحديدنا ومقدي صدح ذا مقدي هوستود أيا إلهي قفك بني آدم كوسو دح سميي مرقا علوشاس تادا ماها سيدنا ما هنا واته إسلام هوينيدي ويان ما دام هوينيدو أي ورشد إلهي وكيالي ubadkaagaasi lagu soo dhex abuuray ayaduna naaska ku wada nuujisay tacabna iyada uu ka galay kugu soo tacabtay kursiintooda marka ha ku santaagin ha xumaynin usabir u dulqaado u ducee haddaad garaacaysid sidaad u garaacaysidna usluubtaasi culimmadu ay sheegaan baa dumarka lagu tarbiyadeeyaa in loo nasteexeeyo qur-aanka ay noo sheega usluubta in loo nasteexeeyo la wacdiyo hadday waanada wax ku qaadan weydo in aqalka laga yar dheeraado laga hijroodo oo faraashiga gogasha looga dheeraado marmarka qaarkoodna ma aragtaan meelaha la iska tago laga warwareego hadday taa wax ku qaadan weydana waa in markaa la garaaco baa ilaahay yidhi dadna markaas ilaahay muxuu yidhi falaa tabquu calayhinna ha ku xadgudbina baa ilaahay yidhi xadgudub la dooni maayo dumarka in xaqooga lagu xadgudbo xuquuq bay leeyihiin marka saalixaad xuquuqdiina ilaahay baa sheegay
bal meesha shariicada islaamku ay dhigtay eega sida laynii tarbiyadeynayo haddii aad dembi aad samaysaan oo ragga madaxtaag aad ku samaysaan usluubta raggu ay niila dhaqmi lahaayeen ilaahay baa caddeeyo sheegay ilaahay siduu ilaahay nii jecel yahay eeg ilaahay uu xaqiina u ilaaliyey suuradan baa layniigu magac daray suurat an-nisaa anagu quraanka kuma hayno suuratu rijaal laakiin suuratu an-nisaa quraanka waa lagu hayaa fa ilaahay tabaaraka wa tacaala hanu soo noqono han toobadkeeno ta kale waxa laynaga rabaa awlaadana han tarbiyadeyno oo awlaadana waxa ku tarbiyadeynana waa maxay akhlaaqda wanaagsan ixtiraamkan barayna xaq ilaahay baan barayna xaq labada waalid baan barayna aayadan fi suurati at-tahrim ilaahay uu ku yiri ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara aayadaas sabab nuzul Ali ibn Abi Talib markuu fasirayay wuxuu yiri ehelkiinana diinta bara bay ka dhigan tahay buuli naartiina naar ka badbaadiye eheladiina naar ka badbaadiye macnaheedu eheladiina diinta bara marka diintan ubadkeena barayna diintu waa maxay quraankan barayna xifd quraankan xafidsiina ubadkeena dadkii hore iskuulada dhigtay way dayacmeene bal intan dambe un hadaba qabateena ubadkeena quraanka han barno oo sunnada nabigeena han barno kaleey salaatu wasalaam oo sunnatu aada sunnada leeyda ee dhaqanka ee guryaha dhexdeeda ubadkeena han ku barbaarino sunnatu aada waa maxay jiifka aadaabtiisa han barno dharka la xidhanaya aadaabta dharka loo xidha han barno cuntada marka la cunay aadaabta lagu cuno han barno aqalka marka la galayo ducada lagaga baxa han barno aqalka marka la soo galay ducada lagu soo gala han barno marka suuqa la marayo ducada la akhrista han barno habeenkii marka la seexanayo aadaabta iyo ducada la akhrista han barno ubadkeena waa inaan yaraantooda waa inaan barnaa waxyaabaha la yiraahdo sunnatu aada waa ilmuhu ku barbaara maaragtaanay adkaarta nabigeena kaleey salaatu wasalaam lana talaaba nabi maxamed ma qaadin baa la yiri ilaa wuxuu ku qaadi jiray dhikriga ducuu laha haduu aqalka galayo ducuu akhrin jiray haduu aqalka ka baxayo ducuu akhrisan jiray haduu bayt almayga galayo ducuu akhrisan jiray haduu ka soo baxo ducuu akhrisan jiray haduu